سلطانka guud ee salaadiinta beesha degta galbeedka magaalada Burco Sultan Cismaan Sultan Cali Madar oo maanta warfidiyeenada kula hadlayay hotel Ambassador ee magaalada Hargeysa ayaa waxa uu ka waramay kulan ay maanta ay la yeesheen salaadiin uu hogaaminayay gudoomiyaha golaha guurtida mudane Salebaan Maxamuud Aadan kulankaas waa jira waa xaqiiqa hadii aad igu soo booqateen oo wax iga weydiiseen gudoomiyaha way saragnay gurigiisaan ku kulanay si aad iyo aad u qiimo leh oo runtii milga wanaagsan buu ayaan maaragtay maxay noo qaabilay ama noo soo dhaweeyay annaguna dee aan milgaheeda lafteedu lahayn oo ugu tagnay waxaan ugu tagnayna waxay ahayd arrinta maanta taagan kolba waxba taagan ee dalka ka taagan ee ku saabsan doorashooyinka iyo muddada maaragtay maxay ahayd doorashadu ay ku qabsoomayso iyo arrinta de maanta taagan oo taasa marka de intaas oo ahayd shirkayagu waan ka wada hadalnay haddii aanu gudoomiyaha wada hadalnay oo kulanayna waxaanu salaadiin ahaan u gudbinay waxay ahayd ama aanu marka horeba ugu tagnay tala qaran oo ku salaysan dalka iyo dadka oo ku salaysan doorashadu inay noo wanaagsanaato si nabadgelyo ay noogu dhacdo si qurux badan ay noogu dhacdo halkaynu maanta marayno inay ka sii wanaagsanaato mooyaane insha Allah la kulmayna wax dib inoo hantaaqiyaan dhicin marka taan ugu tagnay taasay ahayd waxaanay taladayadu ku urursanaydo aan ugu tagnay waxay ahayd komishanka doorashooyinku iyo saddex xisbi qaran iyo dawladda oo ku lahayd iyada qudheedu qaybteeda waxa hore u soo martado ilaa madaxweynuhu warqadiisii raaciyay waxay ahayd in sanad maxay ahayd doorashada lagu qabto taasoo qolada commissionku ay ku saleeyeen timetable-kooda dabeed halka markay sidaas ay u soo dhigeen saddex xisbi qaran la qaateen madaxweynuhu warqadiisii uu raaciyay waxay u gudubtay sida ogtiin golaha guurtida marka waa golaheeni waa bogaadinaynaa munaasabad weyn bay inoogu fadhiyaan marka waxa arinka taagan yahay inay hadaba iyaguna waxa golaha maxay guur soo dhigeen commissionku caalamkuna runtii aynu dan wadaagta leenahay ilaah baa wax caawiye wax badan aynu maaragtay inaga dhaxeeyaan ay waafaqeen laftoodu dalkuna imaka iyo dadkuna ay waafaqeen oo go'aankaas markuu soo baxay si weyn loo waafaqay inay hadaba guurtida golaha guurtiduna ay inoo maaragtay iyaguna shaabadooda ay ku dhuftaan oo markaa dabadeedna wax sidaas loo midaysan yahay doorashadu inoogu dhacdo hawsheedina loo galo waxaynu ku caanamaalay ilaahayna inoo barakeeyay waa nabadda waa isku duubnida waa wada tashiga marka inaynu taa xoojino oo aynu maxay wada tashigeeni iyo wixii kolba taagan in si wanaagsan oo nabadgelyo oo wanaagsan lagu xalilo aynu ku caanamaalay maantana insha Allah tanna inuu gabagabo sidoo kale Sultan Cismaan Sultan Cali Madar warbaahintii wax ka weydiisay in gudoomiyaha golaha guurtida uu la qaatay komishanka doorashooyinka waqtiga ay ku cayimeen inay dalka ka qabanayaan doorashada madaxtinimada iyo golaha wakiilada ayaa waxa uu yiri horta anagu waanu talaanu gudbinaynay taladii aanu gudbinaynay waa u gudbinay hadaa dadna hadii jeer marka tala gudbiyaa wuxuuna waxa weeye gudoomiyuuna horta golu hogaamiya oo waa gudoomiyihii golaha oo go'aanka goluhu ka go'aya ee kalidii maaragtay isagu odayuun buu yahay marka anagu wixii noo muuqday ee aanu dan u arkaynay guudnimadkeena iyo gaar ahaanba dalka aynu arkaynay baanu u gudbinay tiina wuu qaatay si wacan buu soo dhaweeyay waxa la u soo dhaweeyay go'aankeedana waa ka sugaynaa